إذا عد كما يستوى أن موسى عد هبرج على كما صابحين مركي موسى وصدري لباب بقوله أضي وبرعو صدري هدانو عد كدونين وعد آني ميشكوا ينحو لباب بقوله أضي سكسو دبادك داد ما ينسنين كرينو بينوا سي جاهلا الكاسر كانت سيستة نمبر 1 وفيرست بدن هبرج على سيستي هبر أول قاعد ليو عدك ugu badan ay keenaan waa gabiilay maca oromada joogta marka kaar loo qaaday dadka dhintay iyo ilmaha yar iyo wasadan kun Soomaad garan codka gabiilay laga keenay marka la isku wada daro xataa samaroonta degan akishaa madigaanka waxaan ku raadayay oromada hargeysa joogta inta la kaxeeyo kaar looga qaado wasadan kun Soomaad garan aynabo kaliyana 40 kun baa ka codaysay gadaa burco iyo ceeri gaabo iyo waxaan ku ceelaf weyn iyo garadag iyo hawdka burco iyo hadalkeeda daa berbera hadalkeeda daa ma garanaysa weeye 5 jeer bay habar jecel habar wal ka badan tahay oo ka deegaan ballaaran tahay berberadu ka hadlayo leeyahay habar jecel ma deganana wad ogtahay 7 xildhibaan bay ku leeyihiin ninka 7 xildhibaan ku leh ma nin berbera aan deganayn ba ciise muusoo dhan oo laga keenay intii yarayde hal xaafid ka degi jiray suuqa xamarta ninkii garanaya bankiga burco bada xaafadood ka degi jiray ayay xataa soo rareen oo berbera isugu keeneen iyo kuwii hargeysa joogay ay xataa la gureeyay ma garantay waxay soo saareen 10 xildhibaan baan u malaynaya yani awoodii ciise muusoo dhan waxay isugu tagtay 10 xildhibaan halka habar jeclo 2 reer ama 3 reer oo jooga ay soo saareen 7 xildhibaan de waxa weeye soodigii sheegi jirayba alimaadi muxuu yiri reerka xigmada badan afkooday ka dhaheen buu yiri muuse afkiisu ka dhahay maxayna ma kala Soomaali tiraada afnoolina wuu hadlay ayna wuu istaciya afnoolina imkaan baadan wax istiraada ka war waxa weeye wuu iska dhahay afkooday ka dhaheen weeye waa kulki alimaadi waxa weeye xaafada 26 jumbo muuse ka talinaya dhul din kale leeyahay imika waxa Somaliland lagu wada yahay dawqa isoo golaanshaha dadku isoo gol yahay laakiin hadii la istiido muuse wareeraha ugu yar buu ka tirsan yahay reerka xabara wala eediga Somaliland ilaahay waxaanu ka baryaynaa Ramadaan baa la joogay inuu taani uu xabad juq yiraahdo juq inuu xabad ka siiyaan ilaahay ka baryay kana waxa weeye muuse yaheego ay sameeyeen ma garantay wax kasta inaynu qaadana maaha suldaanka iyo jabhadaasi dhulkoodii bay joogaan buurana may gelin ceelaf weyn iyo fadhigaabi kar adag bay joogaan cid eegi kartaana ma jirto ya ninkaas kaliya deegaanka joogaan oo dhalin martibu ku yahay nin martibu ana uu iska tagaya wax xaqiiqada weeye tafaantay reerkan yar 26 juun iyo xaafada yar ee galbeedka berbera degan Somaliland waa ku dheeraad kaasnaba waa laga xishoobay waa ku dheeraad laakiin saaday habar jecel hadda ogaatay hadduma wax laga qabanay garxaj waa ogaa 1994 buu ogaaday artina dhawaan buu ogaaday samaroon waa ogaaday xaq ku raadayay waxa uu harsanaa kaliya arab waa ogaa waxa uu harsana waa habar jecel shaqa laga qabanaya ama waxay doonaan iska sheegaan ama waxay doonaan iska yiraahdaan Somaliland ma hal 26 juun maanta inamadeeriyada heega ku sheekaynaya maxaan ku raadayay muuse wuxuu joogaa hargeysa war muuse hargeysa ma joogo xaafad 26 juun la yiraahdo jooga degmo ka tirsan buu ka degaa hargeysa marka haday Somaliland ay noqotay 26 juun dacwalkiinu waa soo kumaan oran eego inaynu iska qabanno oo Soomaaliya dhanna ka qabanno wax muhiimadu tahay dadkan sida shirqoolka loo dhigay yaqaana aniga niman badan oo iyaga ah oo aan wada sheekaysanay waxay igu yiraahdeen heego ma qadaynayso ilaa bad culaad laga rido wallahi waa iga dhab waan Soomaalihay wali waxaan ku jirnaa Ramadaan maanu afrin wallahi baani wax kale igu heego qadayn mayso xaafadayada 26 juun ama qoladayda habara wallahi inaanu qadaynin ilaa aan bari aan dabka ridna waa la ogaa dhul baahan say direen warma beentayba wadiga imka labada jife ee baha faarax iyo Saad Yunis isku dirayaan tayruftan iyo waxana waxa ka dambeeyo waa heego laakiin waxaan ugu baaqayaa biciido war hadda doonaysan sharafta biciidayta habar jecel barigaba inaynu heego ka safayno dhalinyaradina yare weerartay dadka Ramadaanta ku jira alla soo qabto Allah anuu tanaamisanay waataa dadkii kalena hay waxay iska qasatay barigun aynu istiloow
sida aynu ku jiro muhiimadu waa taa goos kuwa la soo adeegsanaya danna uguma jirto bari danna idinka idinkuma jirto waa inaynu gacan bira ku qabanaa waxa weeye maanta sacdi soo laga gardare maalinta hore laga gardarnaa anuu seefta bannaanka la yidhaahdaa runta kama gabado dadka faane ee meeshan subayriya warsu wax subayriya la yidhaahdaa jirta niyow soomaali wax ku mahmaadaa qofku hadduu isagu liito faanka ayuu mataqaanaa isku dhamaystiraa hargeysa kilaab waxa weeye waa la iskaga dambay waa geel carruuri qaatay ma foga muuse 2 sano u haray sidii suldaanku sheegay cudud iyo xoog iyo cod lagu eriyayaa marka la eriyana hargeysa kilaab iska soo noqonaya markii horeba xabara waltan kule waanu joogno xaq ma laha habar jecel hargeysa kilaab markii la bixinayo dhisanayay miyaan hargeysa joogin muhiimadu waxa weeye kursigaas uu kaga faa'iideysanaya un weeye ma fahamtay qofka yaa ku badnaa miinan green book ka sheekayn jirin oo qoladan habara walbaanay dalka boobin maaliyadda yahay miyaan iyagu hayn afar wasiir oo waraabita ugu bay habar jecel haysay maxay dalka waxa boobay waa habara walweydii kasana cigaal ka soo bilow cigaal islaam maanta waxa dalka dhacaya ku noolaa waa habara wal yad aragtay garxaj iyo habar jecel iyo maxaan ku dhahday dad kale oo u shaqo tago Soomaaliland ka shaqeeya miyad arag qoyska quutay xaranta quuta waa habara wal yaa kale quuta dadka kale xaalun weeye ninka habar jecel hargeysa jooga xoogiisa iyo xiniyiisa iyo lacagtiisa iyo shaqadiisa ku jooga ma garatay marka waxa weeye dadka dalka cunay waa iyaga weeye waanay fahmayna maanta kuwii hadli lahaa ma ku dhulka intay isu dhigaan dadka soo dhawaysan waa uga gurayna inaanan been ku sheegayne waxaan ku leeyahay gobolkan aanu joogno 50 nin baa oo anigu aan ku jira hal maalin min $1 bixinay $50,000 hadda eeg 50 nin oo waxaan isu xisaaray min $1 $50,000 baa ninka anigu magaaladan aan joogo ka ururnay waxa ku dheer boqol baa ku dheer iyo 200 abar jecel oo lacag urur iskaga wanaagsan ma jirto Soomaali maxamed oo dhan waa habar loo weeye ficilkana ilaahay markuu dhaliyay bay la dhasheen urka hooyadood bay kala soo baxeen Soomaaliland oo dhan u taala arrimahan insha Allah mar qorana waan ku xasuusiyay coronavirus markuu inaga baxo insha Allah ta'ala by the next year inta aan la gaarin waxaan oran lahaa dadka kale oo dhan aan heega ahayn in aynu Europe la isugu yimaado sanduuqan horumarinta Soomaaliland ay bixiyaan UK iyo Scandinavia aynu baarlamaanadooda iyo meelahooda lagu tago oo lagu hor mudaharaado oo la yiraahdo lacagta heega ayaa ku macaashta si loo joojiyo arrintaas waa arrin muhiim ah haddii heega laga joojiyo $70 milyan waa dhaawac weyn oo soo gaaray weeye marka arrintaas xoogga inaynu saaro weeye intaynu focus garaynayno hargeysa kilaab iyo wax yaroo hoose weeye lacagta maaragtay heega ku shaqaysato in xoogga la saaro dekada berbera oo cashuurta Soomaali maxamed oo dhan lagu dhistay oo berbera deegaamada ugu badan ay leeyihiin habar jecel iyo garxajis haddana 1993 ilaa maanta waxa xaaraan lagu xuray reer yaroo mataqaana ciise muuse la yidhaahdo oo 500 oo qof oo gaari waaraad qaado waad ogay ninkii laga bedelay lagu soo bedelay mid kale oo heega sida uu qaylinayeen oo mudaharaadayeen waxaa markaa airportka hargeysa oo garxajis iskalayaan cid kaleba la degin oo la lahayn waxaa ka dhigay hanti qaran oo la wada leeyahay oo dekadiina ka dhigay dekad reeb yacni taaynan isweydiino wey airportka hargeysa oo garxajis oo kaliya leeyahay deegaan garxajis yahay waxaa ka dhigay wax la wada leeyahay heegoo dhan uu soo shaqo tagaysa leeyahay waa hanti qaran dekadii la wada lahaa iyaga waliba lagaga badan yahay deegaan ahaan dhaqaale ahaanna aan waxba kala soo degin Soomaaliland oo dhan